maanta taariikhdu tahay 28 bishii Abriil 2022 waxaan shir jiraad ku qabtay xafiiska dawladda hoose degmada Jariban shirkan waxa runtii goob jooga igala ahaa qaybo ka mid ah waxyaha dawladda hoose aad baan uga mahadcelinayaa shaqada adag oo ay maalin iyo habeen ay soo tibinayaan suxufiyiinta iyo wariyaasha ka howlgala degmada Jariban idaacadaha kala gedisan ee dawladda uga howlgala runtii waxaan halkaan rabaa maanta inaan ka hadlo xaaladda guud oo degmadu maalmahan dambe waxaan isaga jirnaa xaalado waqtiga Ilaahay subxaanahu wa ta'ala aan ka rajaynaynaa inuu naga soo tabixiyo bisha Ramadaan lagu jiro barakaysan bulshada xogaa saameyn ay ku yeelatay abaartii welina hadda deegaanada qaarkood aysan roobsan taasi waxa weeye xaaladda abaareed oo waxa weeye marba dhaqaalihii iyo systemka iska yaraaday tan kale bulshada degmada waxaan mar walba ugu baaqayaa inay la shaqeeyaan dawladda inay ka shaqeeyaan horumarka degmada inay ka shaqeeyaan jiritaanka degmada inay ka shaqeeyaan noqdaan dad canshuur bixiyaal ah oo u hoggaansan shuruucda dawliga ah qofkii asagu markaa ka tafadheeraada haddee waa qof maartay bulshada ka tafadheeraaday ta kale oo aan rabo inaan meeshaan kaga hadlo maanta oo qorshaha ugu weyn ah waxaanu dhowaan waqti saas oo kale aan u fogaan idaacadaha iyo suxufiyiinta degmada ka howlgala aanu u diyaarinay oo naga gudbiyeen report aanu kambaniyaasha iyo qandaraas qaatayaasha degmadan ka howlgala oo ka soo qaata hay'adaha internationalka ah oo degmada ka fuliya sida hay'adahan World Vision tadaamul dhismayaal kala gedisan kambaniyadaasi inay soo maraan degmada waxa fiisay yimaadaan waa markii labaad oo halkaan aanu runtii arrintooda soo bandhigno alxamdulillah qaar waan aqbaleen oo waa yimaadeen aad bay ugu mahadsan yihiin kambaniyaasha aqal construction iyo kambaniyaal aad bay ugu mahadsan yihiin oo soo ajiibeen waxaan leeyahay kambaniyaasha hadda degmada ka howlgala oo hadda shaqada wada oo kambani leeyahay kambaniga la yiraahdo adeegsan kambani leeyahay kambaniga Ndol kambani oo asaguna waxa weeye hadda ka wada dhismayaal ilaa Ceerbardaale ilaa Buubi asagana waxaan rabnaa sida ugu dhaqsaha badan cidda mas'uuliyadiisa leh ama hoggaankeeda leh inay soo xaadiraan xafiiska dawladda hoose haddii aysan soo xaadirin oo hadhow ay dhacdo in shaqada la hakiyo ama dacwada ka timaado ama shaqabsi ka yimaado mas'uuliyaddeeda ayaga qaadanaya because annagu aan hadda wax dacwad kale ama wax hawl kale gelin waxaanu ugu baaqnay cod dheer iyo cod gaaban u marsiinay inay soo xaadiraan oo yimaadaan waxaan leeyahay cid kasta oo mashaariicda ama u tartamaysa degmadan ama qandaraas qaadanaysa waa inay soo ajiibaan awaamirta qorshaha kale aan ka hadlayo waxa weeye bulshada ku nool guud ahaantii degmada Jariban waa inay ka shaqeeyaan nabadgelyada amnigu waa waxa ugu fiican degmadan amnigeeda in laga shaqeeyo horumarkeeda laga shaqeeyo oo dad isku duuban oo canshuur bixiyaal aan noqono waxaan cuslaynayaa oo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ba leeyahay inay kambaniyaashaas aan sheegay oo qandaraas qaatayaasha cidii mas'uulka ah degmada ay shaqo kale iyo hawl kale uga furna ilaa ay degmadaas yimaadaan ayna ay soo xaadiraan xafiiska dawladda hoose